السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحابته هل كان يقدر ونسا مال والبوات شوكتان يسلبوا مقال كيجو ومركيدين سوغاريبه مقال كان وحنكها هالليا ريبوت حساسية ودوان صباحي إسلام كان أمضى tusaya dhibaatada xoog leh ee Soomaaliya lagu soo qaaday markaynu ka hadlayno dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladaha kale oo ay gadaal ku wadato sida Israel waa report idin tusaya Soomaalida aan fiirsanayno magacyada aan u kala bixinay isla markaana madaxeeda kore aan fiirsanayno inay tahay Soomaaliya gudihii oo dhan laga gurtay macdanteedii la qaatay waxa la wixii ku jiray laga arursaday isla markaana caalamka oo dhan laga caayayo ayadoo sida markaasi loo xaalufinayo marka bal soo dhawaada meel joogtaan isolbo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba waa 16 February 2026 waana markii ugu horeysay oo aynu maanta hawada ku kulmayno waxaan ka codsanayaa channelka subscribe garaysan si aad ula socotaan muuqaalada noocan oo kala ah oo umada wax badan u kala furaya isla markaana aynu waqtiga badan ku bixinayno sida aynu u analyze garan lahayn sida aynu u fahmi lahayn iyo si markaasi umada aynu uga dhigi lahayn qaab ay u fahmi karayaan iyo inaan ka hadlo ayaa wuxuu soo baxay sanadan hadda aynu ku jirno 2026 horantiisi ilaa iyo dhamaadkii bishii aynu hadda soo dhaafnay ee January ayuu reportkan soo baxay waxa reportkan soo saaray xaalad caalami ah dhowrkii sano waa mar Soomaaliya ka qorta report noocan oo kala ah oo runtii aad muhiim ah waxa la yiraahdaa organization ka reportkan qoray Global Initiative ayaa la yiraahdaa hadda ka hor xataa mar baan report ay leedahay hay-adan aan meelo ka taabta waa report ka waramaya crime waliba organize crime abaabulan ayuu markaa uu ka waramaya waxa jira deegaan ay dadku yaqaanaan magaciisana milxa la yiraahdo ka tirsan gobolka Sanaag isla markaasna buuraha dhaadheer salkooda ku yaala dhinaca shishe oo badda xiga waa deegaan caan ku ah dahabka mudooyinka hadda la soo dhaafay dadka dhagahooda ay aad u maqlayeen in markaasi dahab laga qoto laakiin waxa ka socda meeshaas arin la yaab leh xogta ay Soomaalidu ka hayaan waxay noqonaysaa xog aan waxba ka jirinin markii la fiiriyo xogaha la yaab kale ee reportkan ku qoran ma arag dad Soomaaliyeed oo ka hadlaya haday yihiin warbaahin haday yihiin intellectuals haday yihiin dad kale oo ayagu wax indheeya arrimahan kama hadlaan walina ma arag report noocan oo kala ah dad waqti badan ku bixinaya Soomaalida hadda waxay noqdeen qofka markii la garto deegaan ahaantiisa iyo reer ahaantiisa shabad baa la saaraya deegaan kale kama hadli karo aniga hadda reportkan aan ka hadlo buuq xoog leh ayaad qaybta comment ku arki doontaa laakiin waxa aan in baadar garayaan hadba wixii aan u arko umada inay muhiim u yihiin ayadoo li caayayo in every single day ka warraba waayo waxaan ay qof shakhsiyan xor ah anigu siyaasi uma ijaarni waliga lacag ma siinin cidna af hayeen uma ahi dalka Soomaaliyana meel walba oo aan u arko inay maanta mudan tahay inaan u hadlo waxa iga saaran mas'uuliyad dadka ila jooga inta ugu badan ee muuqaalada daawadana nacayb iyo jacayl midna ay ulama joogaan midkii maantii amaani baa bari caay markuu arkay deegaankiisa arrin ku saabsan ka hadlay waa sida aynu ku wada joogno inta badan waxaan isleeyahay waxay dadku igula joogaanba waa inaan u sheegi karayo waxay san rabin iyo waxay rabaan anyway deegaankan aad arkaysaan ee milxa la yiraahdo waa deegaan runtii qani ah waa mid kamid ah deegaanada qaniga ah laakiin waxa uu qaniga ku yahay ay tahay wax ay reer galbeed iyo Imaaraati markaasi ayagaasi u irmaan ayagaasa jaqa ayagaasa gurta dadkii Soomaaliyeed ee deegaanka deganaa iyo kuwii aan deegaankaas deganaynba way ka baahan yihiin khayraadka xoog leh ee dahabka ah ee halkaas sida sharci darrada ah markaasi looga guranayo haddaan reportkan qaar kamid ah aynu dul istaagno wuxuu reportkan uu sheegayaa magaaladan milxa la yiraahdo ama deegaanka watuulo milxa la yiraahdo muddo yar ka hor dadka deganaa hatta 100 qof way ka yaraayeen laakiin maanta waxa la sheegayaa dadka halkaas degan iyo waxa ka shaqeeya markii la fiiriyo inay gaarayaan dad ilaa iyo 10,000 ilaa iyo 15,000 oo qof oo kala duwan markii aad fiiriso labada sawir ee la isbarbar dhigayo oo deegaankan ku saabsan waxaad arkaysaa kaaf iyo kala dheerid isay u yihiin midkaanu waa September 2012 midkan kale tana waa asaguna February
2025 waxaad arkaysaa in midkaan 2012 ah deegaankan uu yahay deegaan cidda grade ba aysan jirinba waa empty cidda gan ma jirto laakiin hadda markii aynu fiirino sanadii hadda la soo dhaafay ee 2025 waxaad arkaysaan sida loo soo degay numberka degan shirkado waaweyn ayaa ku yaala dadka meeshaan degan Soomaali kaliya ma ajaanibta iyo Soomaalidu hadii ajaanibta badnayn aad bay isugu dhow yihiin wuxuu riboodku sheegayaa dadka meeshaan jooga inay ku jiraan dadka imaaday Suudaan dadka imaaday Yemen Tanzania iyo waliba Ethiopia waxa ku jira shaqaale dhaqaale xoog leh ku shaqeeya oo skillful ah oo xirfad leh yaqaan mishimaha waaweyn ee wax lagu qodo qaabka loo isticmaalo yaqaan oo dibadda laga keensaday deegaankan milxa la yiraahdo ayaa wuxuu yahay sida riboodka ku qoran deegaan cid ma mushaaba aysan jirin dhan Puntland baa ka sheeganaysa wuxuuna ka mid yahay dhulka maamulka Puntland ku magacaaban dhanka kale Somaliland baa ka sheeganaysa dhanka kale hadda waxa ku soo biiray waqooyi bari oo ayagu dhinac ka sheeganaya dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay sheeganaysaa dalka inay dawlad u tahay laakiin xaqiiqada jirta oo riboodkan ku qoran ayaa waxay sheegaysaa intoodu ma jirto cid si caadi ah deegaankan u maamusho oo gacanta ku haysa waxa inta dheer oo aan aad uga fogeyn sida riboodka ku qoran kooxaha al-shabaab oo buraha dhaadheer ee ku teedsan deegaankan ay ku jiraan waanu imaan doonaa ayagu xataa waxay ka mid yihiin dadka dhaqaalaha ka sameeya deegaankan milxa la yiraahdo marka deegaankan sida loogu doodsan yahay cid gacanta ku haysa aysan jirinin ayaa wuxuu yahay mid kamid ah ilaha ugu waaweyn ee caalamka ku yaala ee dahabka uu uga yimaado dalka yar ee Imaaraadka Carabta la yiraahdo waa mid kamid ah meelaha ugu weynba ee dahabka Imaaraadka la geeyo meesha laga keenaa waa deegaankan yar ee milxa la yiraahdo waxa kale oo runtii la yaab leh ayaa waxay tahay dahabkaas ay kooxaha kala duwan ay qodayaan dhammaantiisu u sii socdo gacanta Imaaraadka Carabta ayuu ku dhamaanaya magaalada Boosaaso la geenaya Boosaaso laga dhoofinaya Imaaraadka Carabta la geenaya iyo Dubai inta hadda la og yahay oo riboodkan uu sheegayo ilaa iyo 20 meelood oo kala duwan oo deegaankan ku yaala ayaa waxa laga qodaa dahab ama waxa la oran karayaa waa 20 ceel oo dahabka laga qodo ama 20 god oo waaweyn ayaa laga qodaa 20 kaas dadka qodaya inta hadda la og yahay ayaa waxay yihiin 18 shirkadood oo gaar loo leeyahay ayaa ka shaqeeya meeshaas hal shirkad oo laysan haysata oo meel ka diiwaan gashan kuma jirto Puntland ba dawladda dhexe Soomaaliya maamul kala ma jirto no one oo laysan haysta laakiin waa shirkado qaar kamid ah dalal shisheeye xataa ka diiwaan gashan sida Ingiriiska Imaaraadka iyo meelaha la midka laakiin Soomaaliya kama diiwaan gashana meeshaan ay ka shaqeeyaan 18 ka shirkadoodna dahabka ay meesha ka soo saaraan ayaa si loo sii wado waxa la geeyaa Imaaraadka Carabta lamana ogola dal kale in gacantiisa ay gasho dadka farsamada leh ee meesha ka shaqeeyana waa dad ajaaniba oo waliba aan ahayn Soomaali sida hadda kuwa ka shaqeeya chemicalka iyo maakoriga maybe oo ku wax kala miiro weyn u dahab ma qaano laakiin ku wax kala miiro chemicalka isticmaalo waa ajaanib Soomaali ma mishimo kale oo waaweyn ayaa yaala warshado waaweyn ayaa laga furay dadka ka shaqeeya dhan waa ajaanib weyn xagee laga keenay deegaan burahaas dhexdiisa ku yaala oo cid gacanta ku haysa aysan jirinin al-shabaabku uusan ka fogeyn ka waran in qof ajnabi inta isku aamino halkaas uu iska fadhiyo dhaqaalana ka sameeyo cid taqaana aysan jirinin saaran la yaab leh ma adeymaha ay soo bandhigeen macadkan Global Initiative la yiraahdo ayaa waxa kamid ah inay jiraan shirkadahaasi mid kamid ah inay xiriir toos la leedahay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani 18 kaas mid kamid ah ayaa waxay xiriir toos ay la leedahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo waliba qoyskiisa waxay sidoo kale ay sheegeen macadkan qoray riboodkan in ay arkeen oo waliba dad marqaati ana ay la kulmeen inay canshuur ama baad ka qaadaan dahabkan ururka al-shabaab oo waliba
ay arkeen macluumaadyo xagga taleefanka ah iyo waliba eye witness dad ka warqaba dad arkay qaabkii wax u socdaan in ayaguna sheegeen in ayaguna ka qaadaan lacag baada laakiin ayagu baad bay leeyihiin laakiin cashuur badan ugu yeerayaan marka waa ceel kooxa kala duwan u irmaan dahab aad u tira badan laga qoto dahabkaasna uu gacantiisa ku dhamaado Imaaraadka Carabta boosaaso inta u dhaxaysa milxo xataa hal checkpoint ma taalo waxba laba kulmaan si loo sii wado waxa la geeyaa halkaas dahabka waa laga qaadaa 2017kii dahabkii deegaankan milxa laga qaadi jiray Imaaraadka la geyn jiray ayaa wuxuu dhamaa 2.8 tan oo dahab ayuu ahaa 2.8 tan oo dahab waa dahab badan wuxuu riboodkan uu sheegayaa in sanadii 2023kii dahabka Imaaraadka loo qaadayay ee milxa laga soo saarayay inuu 5 tan oo dahab u ahaa 5 tan way 5 tan oo dahaba markii lagu dhufto qiimaha xilligaasi 2023kii ayuu wuxuu gaarayaa ilaa 300 oo milyan oo dollarka Mareykanka 300 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah waa lacag aad u tiro badan way waa markii afar loo dhigo budgetka Soomaaliga qayb kamid ah way budgetka Soomaaliya hada sanadan 2025kii la soo dhaafay 1.3 billion US dollar buu ahaa marka trigu wuxuu noqonayaa intaas oo kale way marka afar markii loo dhigo mid kamid ah ayuu ahaa waana 2023 24kii 25kii 26kii meequu noqon kara maybe 10 tan buu noqon karaya waxa laga yaabaa marka in the year of 2026 aan joogno dhaqaalaha dahabka sharci darrada ah ka soo xarooda ee deegaanka yarka ah milxa ah inuu times 2 budgetka Soomaaliya u yahay ba suuragal oo inta uu ka tiro badan yahay way qiyaas hadii 2023kii oo 5 tan ahaa 5 tan kaasna 300 milyan ay ahayd in the year of 2026 meequu noqon kara maybe times 2 buu noqonaya marka deegaankaas aba laga yaabi lahaa hadii Soomaali caafimaad qabto xisaabtamaysa shay'aha iska dhicin karta xalaal quudanaysa dhulkooda jecel wadani ah hadii la heli lahaa milxaaba Soomaaliya oo dhan ay iska bili kartaa waxa milxa ku jira Soomaaliya oo dhan ba ka badnaan lahayd laakiin awo waxyaalaha kale oo la yaab kale oo reportkan ku qoran ayaa waxay tahay dahabka iyo hantida inta leeg ee cid ka warqabtaa aysan jirin ee Soomaaliya laga boobayo xataa 1% oo kamid ah Soomaaliya ma galo maamulka Puntland xataa akoonadooda $1 kuma soo dhaco oo ku saabsan dahabkaasi lacag yar oo jajab ah oo aeroboortka iyo diyaaradda waxaas laga siiyo oo ay sheegayaan reportku uu sheegayo in xataa budgetka iyo dhaqaalaha Puntland uusan kamid ahayn oo yar lacag yar ah umba Soomaaliya ka gashay inta kale waa la tahriibiyaa dadka u shaqeynaya Imaaraadka ee dahabkan u qodaya laga yaaba wax yar in laga siiyo kuwa shaqaalaha dhulka qodayana shilmaad yar baa la siinaya laakiin dahabka intaas la eg ee la qodayo ee la daldalayo ee sanadkii hadda la leeyahay 5 tan ayuu kor u dhaafaya 2 sano ka hor buu 5 tan ah waa dhulkanagii oo shisheeye u irmaan haddana musiibada inta la eg cid ka hadlaysa ma jirto qof kasta markuu hadlo shaabad baa lagu dhajinaya ma hadli kartid deegaankaaga maad ka hadashid tuuladaada maad ka hadashid oo maxay tuuladeeda kaga duwan tahay milxo what is the difference qof garan karaya ma jiro boqol baynu u kala qaybsanay qolaba meel bay gashay siyaasiga haysta Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee kamid ah ninka sida umada u boobaya reer Puntland intuu isku daray waxa ku jeediyay xamar bay ku hayaan ma jirto cid inta uu hayo wax ka weydiin karta ma jirto waxa xamar kala dhaxeeya garanay waxaad isku haysaan garanay midda xamar waa gooni can you talk about midda milxaawo waxa milxa ka socda ma laga hadli karaa no cidna kama hadli karto haddaad ka hadasho langab ciilan baata reebel baad nacabta oo ma farmaajo ku soo diray ma xasan gurgurta ku soo diray daaris mentality umadanadii maanta gacantooda ku soo hartay intaas ay noqoto inta bay noqoto afar wiil oo Siciidani soo diray baa dadka indhaha xooga shubay ciid inna ka hadli karto cid ka hadasha markiiba kuwa soo booday garbahaar Etoobiyaanka jooga Xuseen oo ma ka hadashid
ومحي قرباري إثيوبيان كشوجة إمارات كالصومالي كشوجة محي كده دوين what is the difference إثيوبيان كعاو قرباري كشوجة حوجة كويسة إمارات كجورانا يملحو محي تفرق جودة حي وحنقصو كوبا يا ريبوت كان findings كي وحيالي أي أركان أو summarize أبانقصو كوبا يا مركو هو الرئيس وحال يريد ديجان كمل حال يرادو كاترسون قبل كالسنة الصومالية هوستا ديجان مدى أي معمول كبوتلاند مركزي أي شيء inay halkaasi ay tahay mid kamid ah meelaha u irmaan imaaraadka carabta oo dahabka uu tirada badan markaasi looga qaado waliba qaab sharci darro ah aydan wax sharciyada iyo procedure iyo framework ay si jirin marka labaad ma haysato Puntland mana aysan sameeynin nidaam iyo sharci arintaasi wax looga qabanayo iyo wasaarad bixisa shatiyo ku aadan khayraadka iyo resource-ka ay ummadda Soomaaliyeed leeyihiin sida sharci darrada markaasi loo boobayo marka saddexaad maamulka Puntland dakhliga halka ka soo xarooda budgetkooda iyo dhaqaalahooda iyo maxaliyada dawladda ama maamulka meesha ka jira qayb kama ahan waxna kama soo galaan markii laga reebo shilmaad yar oo dhankaas iyo airportka diyaaradaha markii la siinayo la saarayo tigidhada oo qaar kamid ah report-kaba markaa uu ku jiro dad local ah oo siyaasiyiin iyo aktar caalamiya ayaana ka faa'iideysanaya khayraadka xoog leh ee laga boobayo deegaankaasi milxal yiraahdo qodobka shanaad al-shabaab qayb bay ka yihiin boobkaas canshuurtana inay qayb ka qaataan ama extortion ay ka qaataan ayuu reportku u sheegaya ugu dambeyn dahabka iyo dhan uu ku dhamaadaa gacanta imaaraadka carabta markaad maqasho waa in markiiba aad soo xasuusato DB Wall waxaani waxa guranaya waa DB Wall marka DB Wall soo xasuusatana wanaad soo xasuusato Sultan bin Sulayam ninka Soomaalida oo dhan gumeeyay madaxda Soomaaliya ka dhigay sida xaasas uu qaba ka dhigay Sultan bin Sulayamna waa mid kamid ah caruurta Jeffrey Epstein waliba inuu asagu uu xumaan ku sameyn jiray naagaysan jiray ayna sheegayaan qaar kamid ah macluumaadkii laga helay Epstein file marka si kala loo dhiga marka in other words cida ina boobaysa milxa caawa 10 ka tan dahabka ka qaadanaysa waa Jeffrey Epstein iyo Sultan bin Sulayam iyo Donald J. Trump ninkii oran jiray no government no police no nothing it is not even a country it's not a country it is not even a country that's what team kiwi it's the same team ki aynu halkan ku haynay inay dunidoo dhan boobeen fuuleen dunidoo dhan bay boobeen wana fuuleen it's the same team marka dib u raacdo imaaraadka dib markaad u raacdo waa DB Wall dib markaad u raacdo Epstein baad u galaysaa oo wallahi long time baan idinkaga sheekeeyay file-kan soo bixin baa idinku iri Soomaaliya meesha laga haysto xogteeda meesha laga heli doono Epstein file skinkayga ii sheegay damiirkayga ii sheegay ilaa haddana waa ku daba taagan marka ninkii caaynayo ninkii cadaabayo ninkii ii duceynayo Soomaaliya wata meel dhaanta Soomaaliya kuma jirto meel walba waa la haystaa kan ugu shay Israel baa haysta kan ugu sokeeyay Ethiopia baa haysta adigu marka ka ku haysta ka kala wad ka jeclaan kartaa laakiin dalka nagi waka intaas aan ku soo koobaya assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh